magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxaa maanta si rasmi ah looga daafuray mashruuca GBLG kaas oo lagu horumarin doono degmada Laascaanood waxaa ka soo qaybgalay marti sharaf ah oo tiro badan ganacsatada magaalada Laascaanood odayaal iyo qaybaha kala duwan ee bulshada maayirka degmada Laascaanood maamulka gobolka ayaa iyaguna goobjoog u ahaa ugu horeyn mas'uuliyiin ka socotay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland ayaa ka warbixiyay faa'iidada uu mashruucan u leeyahay bulshada iyadoo sidoo kale ay goobta ka hadleen ganacsatada wax garad mashruucan aanu idin wadno ee ay fulinayso dawladda Soomaaliland oo gurmadka ka yahay Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha ka yahay waxa la gartay in mashruucan oo muddo socday lagu soo fidiyo gobolada bariga oo ay ka mid tahay Laascaanood Ceergaabo iyo Caynabo waxa uu ku saabsan yahay saddex tiir oo waaweyn tiirka ugu horeeya waxa weeyaan dhisidda tayada shaqaalaha dawladda hoose iyo siyaasadii lagu hagi lahaa shaqaalahaas iyo serviceka ay dawladda hoose bixinayso qodobka saddexaad waxa weeyaan dhisidda infrastructure-ka waddanka amaba waxa loo yaqaano wadooyinka caafimaadka waxbarashada iyo biyaha sidii kor loogu qaadi lahaa waa waxa ay u xil saarantay dawladda hoose inay dhisto marka mashruucanu waxa uu ku bilaabmayaa waxa weeyaan waxa loo yaqaano dhisidda tayada shaqaalaha dawladda hoose si ay u ogaadaan haddii aanay serviceka qabanayaan ama dadka waxay u qabanayaan aanay garanayn dhibaato badan ayaa ka abuurmaysa marka in ay ogaadaan horta bal waxay qabanayaan iyo sida ugu fudud ee ay waxa u qaban mashruucaasi waa mid horumarineed qaybtii muxuu ahaa sugaseen muddada dheer ilaa ka guddoontaan xukuumadda ayaanu marka hore idin wadnaa naga guddooma ilaahay mahadii waa mashruuc loo jeeday GBLG mashruucaasi maanta wuu soo gaaray weynaga magaalada Laascaanood ku daafurayna waxaan uga mahadnaqayaa marka koowaad ilaahay waxaan uga mahadnaqayaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin oo dadaal weyn geliyay sidii mashruucan u soo gaari lahaa degmooyinka bariga ama Caynabo Ceergaabo iyo Laascaanood GBLG wuxuu noqon doonaa mashruuc aynu ka faa'iideysano mashruuc doodoosan ku koobnaan degmada Laascaanood iyo gobolka Sool degmooyinka laga maqanaya xudun iyo Taleex ay ka mid tahay mashruuc aynu wada yeelano noqon doonaa mashruuc aqoontiisa iyo fikirkiisa iyo xalkiisa baan soo gaarno buu noqonayaa cid alaala cidii soo qabqaabso madaxweynuhu horeeyana waan ugu mahadnaqayaa 2019 maxaa la qabtay master bareeki bal qabtay Laascaanood wadadii garoonka hadda madhanto ma la qabtay basketballkii gacanta ma laga jaro ma la qabtay solar systemkii magaalada ma wada ifaysayo meel walba markay fadan tahay magaalooyinka la hareeraysan ya garoonkii Cabdi Bale ma la balaariyo parking ma ku daawanaysaa ciyaartii adoo live adoo parking gaarigaaga dhigtay iyada wax guriyaanay aan ku xanibayn waruma tahay taas xaruntii gowraca hadeer gabagaba ma tahay qaybtii meedkee dhakhtarka oo isuduwi fadhiyo ma dhameystiranta isuduwi furimaysa yaa wada ragtaa wajaaj weyn kala xalaynay Soomaa shaybaarkii xoolaha waa dhameystiran yahay ninkii arkay ma aragtay shaybaarkii xoolaha wasaaradda cadaaladda dhinaceeda dadkii qashinka baryaan waxa qashin ka cabanaya ma aragteen dadkii waa inoo diyaarsan oo qashinka ugu shaqeeya oo ay noo soo qabanqaabtay dawladdeenu uu horeeyay madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi iyo wasiirka arrimaha gudaha oo yana aad ugu dadaalay in ay ka qabsanto gobolka Sool oo sanadkan lagu daro waxaan idin leenahay dadku marra waxa weeye dad shacaba marra waa dawlad waa marka horeysa qoladiina noo timi haddana wasaaradda arrimaha gudaha ka socotay agaasimayaasha aad iyo aad baan idin soo dhaweynaynaa agaasimayaasha wasaaradda arrimaha gudaha maanta halkan inoogu daafuraya mashruuca maamul daadejinta dowladaha hoose horumarinta dowladaha hoose
waxaan leenahay aad iyo aad baan idiin soo dhowaynaynaa degmada laascaanood gobolka sool aad iyo aad baan idinku soo dhowaynaynaa waa mahadsantihiin tamarsuucan GBLG-ga dalka waxaa ka jira GBLG mashaariicda ay caalamku maalgeliyaan khaasatan midowga yurub saaka waxaanu filaynay mar haddaanu 12 sano ka qatarayn mashaariicdii caalamka qaybtaanu ku lahayn in la yiraahdo saddexdii degmood ee gobolka sool waxaanu leenahay 3 jaamacadood oo oo aqoontii wadanka xambaarsan sida waqooyigaba ay u qabtaan jaamacaduhu inay jaamacadaheenu qabtaan seminaarka aqoon ku filan bay leeyihiin xitaa maayirka dawladda hoose xogeeyaheeda xildhibaanada ayaa ku filan inay seminaarka qabtaan anigu waa fikirka aan cali ahaan qabo in la soo safriyo ma ahayn in gudaha laga qabtay oo aqoon yahanadeenu ay qabtaan taa markaan ka gudbo waxaan ku baraarujinayaa dawladda hoose waxa la idin dhiibay waa seminaarkana qoladan labada wiil haday dhamayso waa inaynu inagu qabsanaa seminaaro ku xiga oo dadkeena waxaysta shakhsi ahaan iyo shirkad ahaan aynu u bixinaa dakhliga ku baxaya wiiga ama labada wiig waxaan kaloo kula talin lahaa anigu madaxda gobolka ee dhalinyarada ah xaflad walba maqaan bay leedahay marka xaflad la qabanayo si muhiimadeeda loo gaaro inaanu hadalku noqon hebel ma yiri GBLG ay maalgelinayso dowladda xukuumadda dhexe ee Soomaaliland ayaa maanta laga daafuray magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool munaasabada daafurka mashruucan waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Laascaanood odayaal iyo waxgarad waxa ugu hor halkaas ka hadlay maayirka degmada Laascaanood waxa uu ka warbixiyay mashruuca faa'iidada uu leeyahay guud ahaan degmada Laascaanood oo uu sheegay in laga hormarinayo mashaariic aad u tiro badan Muxtaar Cabdi Jaamac TV Laascaanood